عقاشة iyo waxgaradka beesha aadan cabdalle hinjille ayaa tacsi ka dirtay geerida ku timi Allah u naxariistay garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud oo kamid ah garaadada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuna geeriyooday magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. عقاشة iyo waxgaradka beesha aadan cabdalle hinjille waxa tacsi gaar ah u direen eheladii qoyska iyo asxaabtii uu ka geeriyooday iyo waliba guud ahaan bulshada Soomaaliyeed uu ka baxay garaadku waxaana hadalladooda ka mid ahaa sida tan. الرحمن الرحيم أنا كوا بيش عبد الله كله كان يسقوني بحوية ما أنت محدارية تعسي صاء قريب كنت من قراد سليمان قراد محمد قراد محمود الله يرحمه الله ونحرسه ومدي ودلي يدتك ومدي سين الله ودلي وسيرتي سمري إيمان الله كسيه ومدي ويند وبقر كواهنا إلهي سمري إيمان كسيه أنت كبعدي الوها بقر نكاسي عادلة نبض خصوصا aad iyo aad loo yaqaan gabayga Soomaali oo dhan buu boqor waxa baa la oran karaa Ilaahay uu naxariisto Ilaahu raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun halka waxaanu isugu nimi tacsidii garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud oo ku geeriyooday magaalada Garowe Ilaahay waxaanu uga rajaynaynaa inuu kitaabkiisa midigta uga dhiibo annagoo ah beesha hinjiile ama aadan cabdalle إلهي وحنا قبرينا إنه كتاب كيس قعنته وقلنا بتشنا فردوسنا إلهي وجيو عذاب القبر جي وكبر موسى وحل يشن تقف عذاب القبر كان الحين بكم من نقضي ما لين تجمعها قف كل أنت عذاب القبر مرها وحوي حسابتنا إن إلهي وفضوا يوم أن إلهي وقبرينا شنا فردوسنا وجيو بقر بوها بقر هرتيات أما سدارات با شنا فردوس إلهي هجي دم سنة الله ضافو دارات iyo harti oo dhan samir iyo dhamaan Ilaahay ha ka siiyo Soomaali oo dhan anana waa u ducaynaynaa in Ilaahay janno firdawsa geeyo dambigiisana Ilaahay uu dhaafo ummadda uu ka dhintayna Ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo sidaas Ilaahay baanu saa uga baryaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu ka tacsiyadaynaynaa geeridii naxdinta ahayd ee ku timi garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud garaad Cali oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Garowe dadkiina aad uga wada naxay laguna aasi doono sarmaayo bariima saa dambe waxaanu leenahay dadkii uu ka geeriyooday samir iyo iimaan Allah ka siiyo caawil khayr qaban Allah ugu bedelo waanu tacsiyadaynaynaa wuxuu ahaa garaad nabad jecel wuxuu ahaa garaad dadku siman yahay waanu tacsiyadaynaynaa Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dadkoo dhan dadka wixii dibadda jooga iyo wixii dalka joogana waxaanu ka rajaynaynaa inay soo duceeyaan oo naxariistii janno alla siiyo lana cafiyo dadkuna uu ka soo qayb galo wuxuu awoodi karaa tacsida iyagoo u imanaya qudura qaadasho inay dhiman doonaan iyo iyagoo u ducaynaya aan lala iman wax kale siyaasada sallallahu alayhi wasallam waxaanu halkan isugu nimi saxaafadan u duubnay annagoo ah qabiilka beesha aadan cabdalle ama dadku say u yaqaaneen hinjiile inaanu ka tacsiyeyno geerida ku timi garaadkeeni weynaa garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud garaad Cali inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsu daaqatu mawt ilaahay ha u naxariisto ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu janno firdawsa geeyo ummadana samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan uu garaadka u ahaa khaas ahaan ehelka iyo raaska ducun buu u baahan yahay intaasaanu meesha saxaafadaydu u timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaanu uga baryaynaa dad wixii uu ka dhintay inuu samir iyo iimaan ka siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ummadda dhan ee uu u ahaa garaadka u ahaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo ilaahayna isaga waxaanu uga baryaynaa jannadii inuu ilaahay ka waraabiyo ilaahay baanu uga baryaynaa ilaahay baanu uga baryaynaa ilaahay baanu uga baryaynaa ilaahu naga ajiib ilaahu naga aqbal ilaahu waa u baryanaya ilaahu baryada naga ajiib oo naga aqbal بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan joognaa magaalada Xudun dooxada Xudun waxaan halkan ka dirnaa baaqa tacsidaan u dirno guud ahaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan beesha Rarti guud ahaan beesha weynta dhulbaahantay taasoo aan uga tacsiyadayno garaadka ku geeriyooday magaalada Garowe
garaad salebaan garaad maxamed garaad maxamuud garaad cali oo ka mid ahaa ismada dhaqanka beesha harti oo ahaa odayaashii ugu waaweyn garaadka waxaa lagu cimaamaday 1982 magaalada Sarmaanyo oo hadda lagu aas doono maalinimada Isniinta muddo 40 sano ah buu hayay cimaamada beesha dhaqanka guud ahaan waxaan ka tacsiyeynaa beelweynta maxamuud garaad iyo beelsha maxamed siyaad uu garaadka u ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan u marnaynaa ilaahay inuu samir iimaan saadiq ka siiyo dhammaan reer garaad Saleemaan iyo reer garaad maxamed iyo caruurtiisii iyo xaasaskiisii waxaan halkan tacsi tiraanyada uga direynaa garaad Saleemaan garaad maxamed garaad maxamuud ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadii uu ka dhintayna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo raxiim waxaan halkan tacsi ka direynaa anagoo ah odayada beesha aadan cabdalle ama hinjile tacsi uga direynaa garaadkii Soomaaliyeed ama garaadkii Soomaaliyeed garaad Saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud taasida sida odayadii hore sheegeen waxa weeye tacsi tiraanyele waxa weeye qod baa ka dumay Soomaali oo dhan baa uga tacsiyeeynaa waxaan leenahay garaadka alla ya raxmo raximin inna lillahi wa ilaahi raaji'uun allah u naxariisto kana dooxada degmada Xudun waxa shir ku qabtay baasha aadan cabdalle hinjile kaasoo tacsi u direeyay garaadkii dhintay garaad Saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud oo ku gooriyay magaalada Garowe waaniga maxamed Cawil Kawte degmada Xudun ee gobolka Sool